الله الرحمن الرحيم warkii fidsan mas'uuliyiinta gobolka Hawd iyo taliya ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliland ayaa xariga ka jaray xarunta qaybta booliska ee gobolka Hawd iyo saldhig cusub oo laga hirgeliyay magaalada Balligubadle sidoo ku soo waramayo wariyaha wakaalada wararka Soomaaliland ee Soolnaha uga soo waramay magaalada Balligubadle Maxamed Jiciir أو أحمد أزراكيش عيداً كبوليسك الصومالي لانا يوحو الشيغي قبل كهودي يوم عمل كدقمدا بالقبدلي إنه مهد عليانا تلسك قودة عيداً بوليسك الصومالي لانا وحي تلمامين إن بسمياش سي أيهين بوري كو مهم وعشغضا أمان كعيداً كبوليسكو كهي عن قبل كاسي تليكو عيداً كعيداً كبوليسك الصومالي لانا سرية قوتو عبد حسن عمير وصير رسمي حرقة ووشري xarunta qaybta booliska gobolka Hawd iyo saldhig cusub oo laga hirgeliyay magaalada Balligubadle ayaa waxa uu sheegay in arintaasi ujeedada laga leeyahay tahay in kor loo qaado shaqada ciidamada boolisku bulshada u hayaan sareeyo guto Cabdi Xasan Mire waxa uu mahad celiyay taliska qaybta booliska gobolka Hawd iyo ciidanka ka howlgalaba waxa uu soo jeediyay inay si laban hawsha ilaalinta ammaanka ee bulshada u hayaan sidoo kalena taliya ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliland sareeyo guto Cabdi Xasan Mire waxa uu xariga ka jaray saldhigga booliska ee degmada Gumbuuraha iyo rug boolis oo yeelan doonto deegaanka Habaasweyn oo ka tirsan gobolka Hawd degmada Sabawanaag oo ka tirsan gobolka Maroodijeex ayaa waxay taakula xoola ah ay ku wareejiyeen ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland taakulada oo ahayd 250 neef oo ari ah ayaa waxa wareejinteeda ka hadlay mas'uuliyiinta degmada Sabawanaag iyo xubno ka wakiilaha dadkii taakuladaasi xoolaha markaasi gaarsiiyay ciidanka qaranka Soomaaliland oo halkaasi ka hadlay ayaa waxay sheegeen in xoolahaasi ay ugu talagaleen in ay ku garab istaagaan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland saraakiil ka mid ah ciidamada qaranka Soomaaliland oo halkaas ka hadlay waxay sheegeen in taakuladaas ay ka gudoomeen degmada Sabawanaag waxay xuseen in talaabadaasi tahay mid ciidanku u muujinaysa inay bulshadoodu garab taagan tahay waxa uu ammaan u jeediyay cid kasta oo ka qayb qaadatay in markaasi taakuladaasi ariga ah la soo gaarsiiyo ciidamada qaranka ugu dambeynna gudoomiyaha gobolka Maroodijeex أحمد محمد علي تيمبرو أي واحد مهد علي مسؤولينته دجمة Sabawanaag iyo bulshada ku nool deegaanadaasi ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaarsiiyay taakulada xoolaha أحمد محمد تيمبرو gudoomiyaha gobolka Maroodijeex waxa uu guud ahaan bulshada ku nool gobolka Maroodijeex uu ku bogaadiyay sida ay u taageereen ciidanka qaranka waxa uu soo jeediyay inay si xoojiyaan taageerada iyo garab istaaga ay u muujinayaan ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland halka doorkaasi kala socotaana waa radio Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu yaraan 390 qof ayaa waxa lagu soo waramayaa inay dhinteen in ka badan 100 qofna ay dhaawacmeen kadib markii uu daba qabsaday dhismaha ay ku taalo xarunta lagu qabto xafladaha aroosyada ee magaalada Xamdaani ee gobolka Naynawa ee galbeedka dalka Ciraaq dabkan waan la sheegin sababta oo markaasi ka dhashay ayaa waxa wali socda hawlaha gurmadka ee lagu baadigoobay dadka ku hoos jira burburka ka dhashay dabka xoog leh ee qabsaday xaruntan ay ka socotay xafladda aroosa oo ay ka soo qayb galeen dad aad u tiro badan mas'uuliyiinta amniga ee magaalada Xamdaani ayaa warbaahinta u sheegay xalay in la xidhay 14 qof oo ku jiro milkiilaha dhismaha gubtay kuwaas oo la sheegay in ay markaasi ku socdaan baaritaano ku saabsan sababta dabka qabsaday xarunta iyo markaasi sababta keentay dhimashada iyo dhaawaca tirada badan geesta kalena ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq iyo wasiirada arrimaha gudaha iyo caafimaadka ee dalkaasi ayaa markaasi gaaray magaalada Xamdaani ee uu shilku ka dhacay waxay soo kormeereen xarumaha caafimaadka ee lagu daweynayo dadka tirada badan ee ku dhaawacmay dabkaasi waxa uu ra'iisul wasaaraha Ciraaq ku amray wasiirka arrimaha gudaha in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo sababta uu dabku ka dhashay waxa kale oo ra'iisul wasaaruhu ku amray wasiirka caafimaadka in markaasi dalka dibadiisa loo qaado dadka ay dhaawacyada culus ay soo gaareen si loogu daweeyo buuri
dhakhaatiirta dibadda markaasi dadkaasi dhaawaca culus ah. mas-uuliyiinta amniga ee xukuumadda Israa'iil ayaa waxay sheegtay xalay in ay fashiliyeen isku day la qorsheynayay in lagu qaarajiyo wasiirka amniga qaranka ee Israa'iil, kaasi oo la sheegay in isku daygaasi ay markaasi ka dambeeyeen Iran. wasiirka arrimaha gudaha ee Israa'iil ayaa warbaahinta uu xaqiijiyay xalay in 5 qof oo Falastiiniyiin ah la qabtay, kuwaasi oo la sheegay inay fulinayeen isku daygan markaasi la doonayay in lagu dilo wasiirka amniga qaranka ee Israa'iil oo isagu ka badbaaday isku daygaasi. isku dayga fashilmay ayaa waxaa la sheegay in laga fulinayo gudaha Israa'iil, kaasi oo la sheegay in la qorsheeyay in lagu qaarajiyo mas'uuliyiin sare oo ka tirsan maamulka Israa'iil. waxay xaqiijiyeen mas'uuliyiinta sirdoonka Israa'iil in markaasi laga soo abaabulay isku dayga fashilmay gudaha dalka Urdun, oo la sheegay in ay ka yimaadeen 5 qof ee Falastiiniyiinta ah ee la qabtay, kuwaasi oo markaasi ka soo galay xuduudda u dhaxaysa Urdun iyo Israa'iil. waxaa la sheegay inay socdaan baaritaanada ku saabsan isku daygan fashilmay oo ay mas'uuliyiinta Israa'iil sheegeen inuu noqonayo isku daygii saddexaad ee markaasi la fashiliyo Iran isku dayday bay yiraahdeen in lagu qaarajiyo mas'uuliyiin sare oo Israa'iiliyiin ah oo iyagu haya mas'abiyo muhiim ah. warkii waad kala socoteen raadiyo Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland. akhyaarta wada nagala socotay waa naga intaasi. warkaasina waxa uu gabagabeeyay gunaanadba oo ahaa baahinta subaxnimo oo markaasi 6:00 subaxnimo inoo bilaabantay. haatana gorsheegta Afrikada Bari waa 8:00 ee hawlwadeenadii qaybaha kala duwan ee baahinta subaxnimo idinku sugnaa. waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. halkani waa raadiyo Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland.